ma ku soo gaartay qisada guusha boyaasadii noqotay wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee dalka Faransa. Belka oo ka soo jeeda dalka Morocco yaraanteedii waxa ay arijir qoyskeeda oo sabab la ari ay dhaqan jirin ay u kaxeen jirtay banaanka magaalada Nordo ee dalka Morocco iyadoo ka hadlaysa nafteedii waxay tiri mar walba oo aan arko arday buug wata iyo anigoo u shariiraaca si taciil ayaan la oon jiray. Najaad Belkam oo ahayd da'deedii 15 jir ayaa 1992 loo kaxeeyay dalka Faransa si qoys halka deganaa ay booyaaso u noqoto. Najaad Belkam waxay ka faa'iideysatay fursadii ay heshay waxayna ku biirtay waxbarashada hoose iyadoo qaangaar ay caruurta la fadhiisan jirtay. dadaalkeedii ay sameysay iyo hadafkeedii waxay noqotay gabadha kaalinta koowaad u gashay fasalkeedii. waxay shahaadada PhD ka qaadatay culuumta horumarinta aadanaha jaamacadda BSL. balse maxaa xigay? Najaad Belkam waxaa loo doortay inay noqoto wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee dalka Faransa. Najaad Belkam waxay qortay buug ay kaga hadlayso taariikhda nolosheeda. buugaasi oo noqday buugga loogu iibsiga badan yahay dalka Faransa. haddaba waad xasuusataa halka ay ka bilowday Najaad Belkam halgankeedii. shalay waxay arijir iyo booyaaso, maanta waxa ay tahay wasiirka waxbarashada dalka Faransa. haddaba adiga cudurdaarka aad haysatid waa maxay?